kulanti haboon daawadayaal halkan waa Soomaali Press TV qodobada barnaamijka aynu ku soo qaadan doono waxa ka mid noqonaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ciidamadii ugu badnaa u daabulay degmada Cadalle iyo xog culus oo laga helay ujeedka ciidamadaasi ku beesha madaxweynaha ay halkaas u gaareen Generaal Odawa Yuusuf Raage oo qaaday tallaabo ay si weyn ugu farxeen shacabka Soomaaliyeed xilli uu ku dhawaaqay go'aan adag barnaamijkan aynu kugu soo gudbin doonaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan waxa ka farxiyay shacabka Soomaaliyeed isla markaana uu ku dhawaaqay Generaal Odawa Yuusuf Raage oo taliyaha ciidanka xoogga dalka Al-Shabaab waxa ay gudaha Muqdisho ka bilaabeen arrin la yaab leh xilli dowladda federaalka Soomaaliya go'aan adag ay ka soo saartay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab waxyaabaha ay ka bilaabeen Muqdisho iyo ganacsatada oo iyaguna si cajiib ah uga falceliyay qodobadaasi iyo qodobo kale aynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkan waxaan marka hore idinka codsanaynaa inaad subscribe inoo saartaan channelkan Soomaali Press TV like-na aad saartaan muuqaalkan siina share gareysaan mahadsanidin aynu ku bilaawno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ciidamadii ugu badnaa waxa uu daabulay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku waramaya in dhaqdhaqaaqyo culus ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka bilaabeen deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada Cadalle oo xeebta gobolka Shabeellaha Dhexe dhacda ciidamadan ka tirsan kumaandooska Danab iyo Gorgor ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay ka baxeen Muqdisho iyagoo ku biiray ciidamo maalmo ka hor ka baxay Muqdisho kuwaas oo Cadalle ka bilaabay dhaqdhaqaaq ay ku doonayaan in Al-Shabaab looga saaro deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe sida wararka aanu helayna ay tilmaamayaan ciidamadan saacadihii la soo dhaafay gaaray degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa watay gaadiidka dagaal noocyadii ugu dambeeyay oo ay kala dhiibeen qaar ka mid ah dowladaha caalamka si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab warar soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu isna ku sii jeedo degmada Cadalle si uu u dhiirigeliyo ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ka bilaabaya degmada Cadalle sidoo kalena ku geenaya ilaa xarar dheere si ay u go'doomiyaan Al-Shabaab oo weeraro qorsheysan ka abaabula deegaano dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe si gaar ah degmada Aadan Yabaal oo sidoo kale ciidamada ay qorsheynayaan in howlgal kula wareegaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu xiran doonaa tuutaha ciidanka isla markaana waxa uu dagaalka ka hagi doonaa magaalo xeebeedka Cadalle waxaana soconaya qabanqaabadii ugu dambeeyay ee soo dhaweyntiisa saraakiil fara badan oo ka tirsanaa ciidamadii badbaado qaran ayaana ku sugan jiida hore ee dagaalka iyo sidoo kale goobo kale oo loo diyaariyay in madaxweynaha la dejiyo inta uu ku sugan yahay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cadalle ayaa waxay xilligan la ciirciiraysaa ciidamadii ugu badnaa kuwaas oo u diyaar garoobaya howlgal saf balaaran ah Al-Shabaabna looga saari doono deegaano ay ka mid yihiin masaajidka Cali Gaduud oo ay haatan ku sugan yihiin dagaalyahano badan oo ka tirsan Al-Shabaab dhawaana ay ku soo bandhigeen koox ay sheegeen inay la dagaalamayaan dowladda federaalka Soomaaliya kuna beel yihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xaaladda ayaa haatan aad u kacsan iyadoo sidoo kale dadka deegaanka ay cabsi xoogan muujinayaan maadaama ciidamadii ugu badnaa dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi ay geysay si loo fududeeyo gulufka dagaal ee Al-Shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi dhaqdhaqaaqyadan ayaana la xiriira kacdoonka shacabka ee ka dhanka Al-Shabaab waxaana xusid mudan in kooxdii ugu horeysay Al-Shabaab ka soo horjeesatay ay ka soo baxeen degmada Cadalle sanadkii 2018 walow hogaamiyahooda Al-Shabaab ay ku dileen howlgal ay halkaasi ka fuliyeen haddase madaxda ugu sareysa dalka ayaa halkaa gaaraya si ay qayb uga noqdaan howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab oo awoodooda maalmihii la soo dhaafay ahayd mid koobantay isla markaana laga saaray deegaano dhowr ah oo dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya dhinaca kale Generaal Odawa Yuusuf Raage ayaa waxa uu qaaday tallaabo si weyn ay ugu farxeen shacabka Soomaaliyeed isagoo ku dhawaaqay go'aan culus oo ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ee fadhigeedu yahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Generaal Odawa Yuusuf Raage oo la hadlayay ciidamo fara badan oo qayb ka noqonaya dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa u jeediyay fariin dardaaran u muuqda si ciidanka ay u helaan dhiiranaan isla markaana Al-Shabaab gaarsiiyaan jab xoogan xilli ay soconayaan howlgallo saf balaaran ah oo Al-Shabaab looga saaray deegaano badan oo ugu badan gobolka Hiiraan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee Generaal Odawa uu khudbada u jeediyay ayaana wajiyadooda waxaa ka muuqanaya dhiiranaan ku aadan siday ugu diyaar garoobeen dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab Generaal Odawa Yuusuf Raage ayaa si cad waxa uu uga hor yimid
warar maalmihii lasoo dhaafay la isla dhex marayay oo ku aadan in wadahadal la yeesho ururka al-shabaab kuwaas oo ergo u soo dirsaday dowladda federaalk Soomaaliya si looga khafiifiyo howlgallada socda loona siiyo marin ay uga baxaan deegaanada qaar oo ciidamo fara badan la dhigay si ay u soo afjaraan xubnaha ka tirsan al-shabaab meelaha qaar ayaa la soo warinayaa in dhaawacyada al-shabaab ay ku dandaraysan yihiin isla markaana la laayahay meelo ay geeyaan oo ay ku daweeyaan xogaha Somali Press TV uu helay waxay sheegayaan in xilligan General Odwaa Yuusuf Raage oo si cad u diiday arinta la xiriirta in fursad la siiyo dagaalamayaasha al-shabaab si ay u helaan goobo ay uga baxaan deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay ku wajahan yihiin kumanaan kun oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka si ay isugu furaan cadalle iyo sidoo kale xarar dheere oo marin muhiim ay ku leeyihiin ururka al-shabaab sidoo kalena aadan yabaal laga saaro xubnaha ka tirsan al-shabaab kadib markii ciidamada dowladda federaalka saraakiishooda ay ka war heleen in al-shabaab halkaasi ay u tahay marin muhiim ah iyo saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin halkaasi wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Odwaa Yuusuf Raage uu doonayo in al-shabaab lagu soo afjaro muddo kooban sidoo kalena aan dhegjalaq loo siin dadka ku andacoonaya in xilligan wadahadal la yeesho ururka al-shabaab ciidamada dowladda federaalk Soomaaliyana waxa uu faray in tallaabo adag ay ka qaadaan shakhsiyaadka horboodaya ama ku dhiiranaya in al-shabaab wadahadal la yeesho waxaana xusud mudan in dhowaan odayaal dhaqan oo ka soo muuqday baraha bulshada ay sheegayeen in al-shabaab ay diyaar u yihiin in wadahadal la yeesho isla markaana ay ka baxaan deegaano badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ah walow deegaano kale ay sheegeen inay aadayaan waxaana la ogeyn deegaanadaasi taa oo soo dedejisay go'aanka taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odwaa Yuusuf Raage uu ku doonayo in al-shabaab la soo afjaro isla markaana aanu xilligan loo jilcanaan lagana faa'iideysto fursadda ah in meelo badan oo dalka ka mid ah ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ay ka saareen dhinaca kale al-shabaab ayaa waxay joojiyeen dhismayaal laga dhisay magaalada Muqdisho waxaana arintaasi si carar leh uga hadashay dowladda federaalk Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa si carar leh uga hadlay dhismayaal ka soconaya Muqdisho oo loo istaajiyay amar ka yimid dhanka al-shabaab wasiirka ayaa sheegay in arintaasi ay ku turjumayso dambi ay galeen dhulalka loo joojiyay amarka al-shabaab wuxuu sidoo kale tilmaamay in amarka laga qaato xubnaha ka tirsan al-shabaab oo uu qaarkood ku tilmaamay caruur yar in dowladda federaalk Soomaaliya aanay u dulqaadan doonin in dad jooga duurka isla markaana aan imaan karin Muqdisho amarkooda laga hirgeliyo wasiirka ayaa amray in si degdeg ah loo fasaxo dhammaan dhismayaasha oo bartoodii ay ka wataan dadkii hoosha dhismaha ku guda jiray waxaana uu ku hanjabay in tallaabo laga qaadi doono ciddii aan sidaasi sameyn ciidamada ammaanka waxay tallaabo ku habboon ka qaadi doonaan kooxaha argagixisada ah cid kasta oo amarka dowladda fulin weydana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci ah ayuu yiri wasiirka inta uu ku guda jiray shirkiisa jaraa'id ee degdega ah al-shabaab ayaa dowladdaana muuqan waxay ka ahayd muddooyinkii dambe Muqdisho walow maalmihii la soo dhaafay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed la wariyay inay diideen lacagaha ay siin jireen al-shabaab waxaana la burburiyay maxkamado ay dadku ugu yeeri jireen kuwaasi oo ku yaalay deegaanka Basro isla markaana ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya